الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواذا وركا الظهورنما إذا عدى الراديو كلمية madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlay xayiraadii laga saaray safarkiisa Kismaayo sheegayna in dawladdu ay ku socoto wada qaldan oo burbur sababi karta dawladda Soomaaliya ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland xukuumadda oo looga digay in al-shabaab ay Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka ku weeraraan gaadiidka ay ku qabsadeen deegaanka Ceel Saliini kooxda Daacish ayaa waxay soo bandhigtay dagaalamayaal ay ka qorteen gudaha wadanka Soomaaliya wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya oo tagay magaalada New York si ay kaga qayb galaan shirka guud ee qaramada midoobay dawladda Koonfur Afrika ayaa iyadna waxa ay ku dhawaaqday in la maxkamadayn doono dadkii ka dambeeyay rabshadihii ajaanib nacaybka ahaa ee ka dhacay wadankaas maamulka Koonfur Galbeed oo gudoomiye u magacaabay deegaan ay gacanta ku hayaan al-shabaab gobolka Shabeellada Hoose Barni Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeedna waxa ay cabasho ka muujisay dhul beereed ay sheegtay in xoog looga haysto ku yaala degmada Balcad UK oo Iran ku eedeysay weerarkii lagu qaaday warshadaha saliidda ee Sacuudiga iskuul ku dumay Kenya oo ay arday badan ku dhinteen markale ku cel warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beerraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idinkugu waramaya duurkan cabdullaahi muuse xasan qigacal iyo anigoo xawlul cubayd warka waxaa soo saaray maxamed cali maxamed taariikhduna waa 23 bisha 9 sanada 2019 madaxweyne sheekh shariif ayaa maanta shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay xayiraadii ay dawladdu ka saartay safarkii uu ku aadi lahaa magaalada Kismaayo isagoo isla shirkiisa jiraayadna wax kaga taataabtay in hanaanka ay dawladdu hadda ku socoto uu sababi karo burbur qaran Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa noo faahfaahinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shalay loo diiday inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta shir jiraa'id oo kaga hadlaya xayiraadii lagu soo rogay iyo qalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay wuxuu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana sheegay in socdaalkiisa dawladdu ay hor istaagtay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa go'aanka dawladda ee duulimaadka Kismaayo oo isaga saamiyay ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka iyo xorriyadda muwaadinka wuxuuna ka digay khatar weyn oo ka dhalan karta go'aankaasi Shariif ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay diiday inay ka garaawdo is-hortaagii lagu sameeyay muddo ka badan 24 saac isagoo dhinaca kale sheegay inaysan jirin cid is-hortaag ku sameyn karta oo ka celin karta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka wixii ka dhashana isku daygaas ay qaadi doonto dawladda Soomaaliya waxa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay warbixin ka bixiyay safarkeennii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sidoo gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aan uga xunnahay dalkan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa tacaddi iyo jibin la jibiyay dastuurka oo dawladdu si bareera oo ula kaca u sameysay ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin hal shay laga reebi karaa laga reeba sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaana aan socdo siyaasadda aan socdo islaan ari raacaysa hadii ay wacdo intiraay maadan ku qanacay inaan tiin karaa rabaan waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaaliya inuu lahaa karo dawladda 24 saac la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxay khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunaqabatay waxaan u maleynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano
dawladdii ku meel gaarkaada aan hogaaminayay waxay ku guulaysatay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga la ogolaa waayo cidda loo ogolaa kara bal ii sheega madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhinaca kale dawladda ku eedeeyay caburinta siyaasiyiinta ganacsatada iyo bulshada rayidka waxa uu sheegay in dawladdu ay afduuftay baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay weerareen gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sidoo kale waxa uu sheegay Shariif Sheekh Axmed in maamul goboleedyada aysan xur ahayn intooda ugu badan wixii soo harayna ee dawladda Soomaaliya weerar ku tahay arrintaas inay ka dhalan karto cawaaqib xun baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aasha sadika ay weydiinayaan Soomaaliya inuu intuu fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo waxa ay la taasoo saar awood ma u leeyahay maya صح waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadayna arrintaas sheegay waxa cadaynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu ay isqabteen in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen ma ogidin haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladda waa dawladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan si loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda waxa la socotiin siyaasiyiinta ama axzaab ha noqdaan ama ha noqdaan madax maamul goboleed dhibaatooyinka dawladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal arku waa kaas sheegay maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeeyaan ma jiro dastuurkii la rabay inay dhameystiraan ma dhameystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka kamid ah in shabaab ay soo weerareen oo baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragtay Shariif Sheekh Axmed waxa uu soo hadal qaaday wararka sheegaya inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waqtiyo badan oo galay xal u raadinta khilaafaad hay'adaha dawladda gudahooda ka jira way ku guuldareyseen xal u raadinta khilaafaadkaasi madaxda hadda dalka haysa ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo sababtii uga aamusnaa dhacdooyin badan oo dalka ka dhacay sanadii la soo dhaafay aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu toono dawladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar leeyahay xataa heshiis dhex maray ma aha sidaas aniga dawladda waxaan uga aamusnaa turid aan u turaay maxaa yeelay waqti ay iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayay kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayay yaani inay degdeg ama si khalad wax laaban ma rabo marka aniga waxaan ku jira dadka dhahay dawladda 4 sano loo dhaafo okay 4 sano loo dhaafo haddaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xorriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada galayno soo wada gali karnaa bal inshaga garoonka magaalada Muqdisho dalkan wali dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku ogyahay adag oo dawladnimada Soomaaliya bay u noqdaan ma jiraan oo ogtiin sida ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan bal fiiri hadday naqato ana lay doortay oo waxaan raban sameeynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsaneyn ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan saamileyda siyaasadda abwaanada culimada ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo dalka lagu badbaadiyo maadaama uu qaranku sheegay inuu haadaan ka sii dhacayo waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha uu u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oo san jirin waxa dhala kara waa gar kartay annaga ma rabno intaan iska aamusno markay waxa laabanayna indhaha taagan dawladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaanayna intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn haleys waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa diinka dhalinyarada haweenka abwaanada
cid walba oo waxgalaho Soomaaliya aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladdeena burburto kama aqbali karno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo boorsidiisa wata suudkiisa wata ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysto Xasan Cali Khayr waa sidoo kale anaga dalka waxba naga galay mana ogolino burbur codkaas waa madaxweynihii hore